aad baan idinka mahad celinayaa soo dhoweynta aniga saaxiibada ila socdayba. Waxaan filayaa safar baan ku aaday Nairobi. safarkaasi wuxuu lahaa ujeedooyin kala duwan oo badan, laakiin waxay noqotay waxa asalkii in guud ahaan si kadisana aan isugu nimid madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood oo socod u yimid iyo beesha caalamka safaaradahaba. taasoo waxaan ka hadalayahay Soomaaliya inay xaaladday marayso hore looga sii wadaba inayna dibdhac aynan u baahnayn. waxaa laga qaban karana ay tahay Soomaaliya inuu qof waliba garto marxaladdii ay shalay soo martay, meeshay maanta taagan tahay iyo siday hore ugu sii socon lahayd. taasaa waxay ahayd shayga asalkii aan isweydiinaynay. arrintaasi waxay dhalisay inaan isweydiinno maxaa laga tashadaa. waa midda keentay baaqa ah in Garowe la isugu yimaado. shirkaa Garowe ma ahayn shir kii amniga, ma ahayn shir kale oo si kale loogu baaqay. wuxuu ahaa shir lagu baaqay oo ahaa in bal siyaasiyan wax la isu weydiiyo oo ay tahay waxa dhabtee Soomaaliya laga wada hadlaya inuu noqdo waddanku xageebu u socdaa, maxay tahay tallaabadaan hore u qaadayno, maxaan ka hadalnaa. haddaan siyaasadda lagu heshiinina way adag tahay in wax badan oo kale laga heshiiyo. waxaa noqonaysaa in laga heshiiyo dastuurka, in laga heshiiyo doorashooyinka, in lagu heshiiyo resource sharinka, in lagu heshiiyo security-ga, in lagu heshiiyo waxaasoo dhan waxay keenaysaa in la helo heshiis siyaasadeed. waayo Soomaaliya maanta waxaan odhan karnaa waxay soo martay marxalado adag, laga bilaabo shirkii Carte Jabuuti ka dhacay, dowladdii ku-meelgaar TFG lagu soo dhisay, ilaa hadda steps bay hore u qaadaysay yayna xawli ku soconin. taasi waxay keenaysay in maalin walba tallaabo la qaado, ha jiitanto ha waxaysato, laakiin in dib loo noqdaay waa wax aad iyo aad u dhib badan. taasaa markaa waxaan isla qaadanay inaan bal isweydiinno shir inaan isugu nimaadno siyaasadeed. waxaa lagaga hadlayaana inay noqoto siyaasad, in la isku fahmo. waxaa dhibaataa inaan dadku la isla garanayn xataa waxa la sheeganayo. taa waxaan isleeyahay shirkaasi sababtaasuu noqon doonaa. waxaa kaloo rabaa kelmad yar inaan ka idhaahdo arrimaha amniga, gaar ahaan reer Jubbaland. waxaa aad Soomaalidu u qiyaasaysay oo dareenka dadka ee guud u ahaa jubbooyinka marka la yidhaha gaar ahaan Kismaayo inay tahay meesha dhibaatada Soomaaliya ay ugu dambaynayso. iyadiyo Muqdisho inta badan la isgarab dhigi jiray. sababtood maxaa loo samaynayaa? waxa weeyaan qabaa'ilada kala duwan iyo bulshada ku wada nool iyo wixii laga soo maray yaa waxay dadka u tusaysay inay tahay meel aan xalkeeda degdeg loo gaari karayn. waan garan karnaa markaa wixii aan ku soo marray tan iyo maalintii aan nimid, dib u heshiisiintu ilaa hadda ay socoto, culayska laga soo maray, waxa aan raadinayna waan garanaynaa. marka haddii markaa aan sidaas u garanayno, ma doonayno inaan hal tallaabo dib u qaadno. hadday doorasho dhacayso waxaan rabnaa doorasho xor ah oo xalaala oon cidi faragelinaynin oo sharciga lagu dhaqmayo inay dhacdo. waxaan doonaynaa cidda ku guulaysatay inay dhaxasho system aayagal ah, lagu shaqeeyo, raad lahaa, meel laga bilaabane. waayo annagu waxaanu nimid iyadoo zero ah, colaaddu ay taagan tahay, qof waliba qofka kale argoos uu niyadda ugu jiro. sidaasay dhacdo. taas sharci iyo dib u heshiisiin iyo nidaam la ilaaliyaba waxay gaadhay markaa in maanta ay marayso meelaha ugu amniga roon Soomaaliya. ma doonayna markaa in barnaamijkaasi wax carqalad ay ku timaado. waxaan aad walaac uga qabaa Muqdisho in mar walba waxyaalo caqabaada oo amniga wuxu dhimaya ay ka soo yeedhaan oy ka yimaadaan. wixii ka dhaca ee mas-uuliyad darro ah ee dhibee dadkaa soo gaadhayay, laabudda cid unbaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta. waan ka digayaa dadka reer Jubbalandna waxaan ku odhanayaa walaalaad tihiin, isku mid baa tihiin, ehel baa tihiin, reer Jubbaland baa tihiin. waxa idiin yaallaa waxaa inaad tiinna ilaashataan. maanta qabiil ma laha,
oo qoys ma laha oo degmo ma kala laha waa dad isku mid ah dadka noocaas oo kale isku wadis bay u baahan yihiin in la kala qaybiyo iyo in kolba bareesharo iyo dhib loo keeno midna danu maaha arrinta siyaasadda iyo nolosha dadka iyo deganaanshaha in la isku khaldana sax maaha cid kastoo damac siyaasadeed inay dariiqeeda sharcigaa marka aasala qof dan kale ma jiro oo dan gooniya kale oo doonaya inay wax sida noqdaan ama siday noqdaan taa markaa taasna intaasaan rabaa inaan idhaahdo waxaan rajaynayaa shirka garoowe aan tegi doono inuu ka soo bixi doono wax dhab ah oo bal warbuuggan aynu wada qorannay ee dastuurka ah iyo resource sharinka iyo federaalismka iyo waddanku meeshuu u socdo iyo wuxuu noqon doona inay noqoto su-aal intaan iska weydiino la isaga jawaabo taasaan rajaynaya inay noqonaysa haddii ilahay idhaah oo shirkaas uu ka duwanaan doono shirarkii hore waayo waa la koobay mas-uuliyiinta arrimo badanoo jirana waddanka haddaan la helin heshiis siyaasadeed oo waxyaalaha qaarkood lagu gaaro xataa dastuurka dhammaystirkiisu uu iska adkaanaya horaan uga sheegay maandhowe qoladii dastuurka markaan la joognay waxaan ku uhi dastuurka soomaaliya jiitan kama baxayo inta mar walba uu leeyahay dan dad kale oo siyaasiyiina waxaa soo jeedinteedu ahayd in la helo dad aqoon-yahana oo ka madax bannaan siyaasad oo dad siyaasadeed lahayn ama soomaali ha noqdeen ama yana noqonin oo intay meel fadhiistaan time la siiyo laydhaha waqtigaas dastuurkaa ku soo dhammaystira kadibna shacabka intii loo bandhigo ay iyagu markaa ansixiyaan waxyaalaha shuruudaha ee ku xidhanna oy ka mid tahay arrinta somalilanna intaa ka horraysa iyadana xalkeeda weji uu lagu dilo oo iyadana laga shaqeeyo sidii hawshaa loo dhammayn lahaa marka waxaan isleeyahay haddii aan ku heshiinno wax ummad waxbaa kala haga haddii isagan aan ku heshiinno wax badan baa inoo soo baxay laakiin waxaan ku celcelinayaa reer jubbaland aan nabadgelyadeena xajisanno ka dhinac inooga baxa aan u yeedhanno waxaan u marray nabadaynta inaan guryo dad ku garaacna albaabo inaan qof walba soo barino nin kastoo wax sheegana waxaan rabaa inaan u yeedhanna walaalo kaale maxaa kaa maqan ciiddaadii waatan waxaad wax ku raadinaysa tan ka dhiwa taasaana asala iyadaa wax lagu gaari karaa iyadaa guul lagu gaari karaa iyadaa horumar lagu gaari karaa iyadaan wax ku noqon karaa waxaan soomaali wax u tari karnaa markaan inagu wax isu tarno aad baad u mahadsantihin salamu calaykum waraxmatullahi